assalaamu calaykum. haddii aad tahay qof raba inuu miisaanka iska dhimo ama raba inuu wax ka ogaado habka loo dhimo miisaanka, waxaan rabaa fiidiyogan inaan kugula wadaago 3 qaab ee miisaanka loo dhimo. tan koowaad, yareey kaloriska. qofkii raba inuu miisaanka iska dhimo waa inuu ka taxadiraa wuxuu cunaayo iyo wuxuu cabaayo. haddii aad maqasho cunadan waxaa ku jirto 100 calories, waa hab kale oo loo qeexo meeqa energy uu jirkaaga ka heli doonaa cunadaas. calorieska way ku qoran tahay cuno walba oo sijil ah. kuwa aan sijilka ahayn qiyaastooda waxaad ka heli kartaa qadka internetka. hadda waan fahanay calories wuxuu yahay. aan fiirino jirka siduu uu tamarta u bixiyo, sida energy-ga oo kaga baxdo jirka. jirkeena energy wuxuu oga baxaa 3 nooc. tan koowaad, basal metabolic rate oo loo soo gaabiyo BMR, waa energy-ga lagu joogteeyo shaqada jirka, sida shaqada maskaxda, tan keliyaha iyo wixii la midka ah. taas micnaheedu waxay tahay jirkaaga adigoo hadda iska fadhiya energy inuu isticmaalayo. tan labaad, physical activity ama dhaqdhaqaaqa jirka, sida jimicsiga iyo wax walba murqaha ka shaqaysiinayo. tan saddexaad, tamarta lagu bixiyo dheefshiidka. saddexdan aan soo sheegnay, midda ugu badan uu jirkaaga ku dhumiyo tamarta waa tan loo yaqaano BMR ama tamarta joogteynta shaqada jirka. sababtoo ah 60% ilaa 75% tamarta jirkeena ka baxda maalintii annagoo iska fadhino ayay naga baxdaa. tusaale fudud haddaan soo qaadano, aan ku tilmaamo jirka sida baaldi hoos ka duleela, dhibic biyaha hoos ka sii deynayo, afka horena biyo kaga soo dhacayaan. marka haddii baaldigaas inta biyo ee soo gasha ay ka badato inta ka baxda, wuu buuxsamaya. laakiin inta ka baxda haddii ay ka badato inta soo gasha, waxaa shaki la'aan ah in xoogaha kadib baaldigaas uu faaruq noqonayo. qodobka labaad, sokorta jooji. sokorta calorieska ku jira wuxuu la mid yahay ama uu ka agdhow yahay tan ku jirta cunada kale, laakiin sokorta nafaqo kale ma lahan. midda kale lagu arkay sokorta waxay tahay waa inay tahay addictive. haddii aad cunto cuno macaanku ku badan tahay, waxaad u baahnaanaysaa inaad macaan kale aad sii cunto xoogaha kadib. waxay kaloo ku horseedi kartaa diabetes ama xanuunka macaanka, sababtoo oo heerka oo blood sugarka ay kor u qaadaa sokorta. cunada kale waxay uga duwan tahay, isla markiiba tamar ay ku siinaysaa, laakiin saacad kadib sidii hore iyo si ka daran ay gaajo ku qabanaysaa. qodobka saddexaad, jimicsi joogto ah. marka miisaan la dhimaayo, jimicsiga wuxuu kor u qaadayaa tamarta, wuxuu kor u qaadayaa tirada calorieska jirkaaga ka baxayo. haddii aadan hore u sameynin jimicsiga, ha isku qasbin. ha ka bilaabin inaad 20 mile ama 20 kilomitir aad orado. ha isku dayin. tartiib waxaad ka bilaabi kartaa socodka. waxaad sameyn kartaa jimicsi guriga lagu sameeyo, sida sit-upka iyo sida squatska, in la fariisto, la kaco, in tan caloosha lasoo fariisto, gadaal loo laabto. iyo waxaad kaloo sameyn kartaa push-ups. waxyaabo badan oo guriga lagu sameyn karaa jiro. kuma qasbanid inaad 20 mile aad orado ama bid culeyskeedu 100 kg gaaraya aad ka bilowdid. haddii aad awalka hore aad si zaid isku qasabto, waxaa laga yaabaa inaad nacdid. ma rabta inaad ogaato in calorieska jirkaaga gubo adigoo iska jiifa ama waxba qabanayn. sidan ayaad ku fiirin kartaa BMR haddii aad ku qorto Google-ka, search haddaad dhahdid. calculator badanaa jirto, marka kuwa qaarkan oo kale hadda wuxuu ku xisaabinayaa inches iyo feet uu u xisaabiyaa dhererka, culeyskana pounds ayuu xisaabiyaa. haddii aadan ku aqoonin intaas, waxaad sameyn kartaa mid kg iyo centimeter isticmaalaya ayaad isticmaali kartaa. kan oo kale marka wuxuu ku weydiinayaa da'daada iyo jinsigaaga, dhererkaaga
iyo culeyska jirkaaga si loo soo saaro inta tamar aad u baahan tahay inaad ku noolaatid adigoon shaqaynin waxba qabanin. marka da'da geli ugu yaraan 25 haddii aad rabtid mitir haddaad ku taqaanid dhererkaaga mitirka taabo 179 iska dheh iyo culeyskaaga haddii aad ku taqaanid kilogram ama pound midkaa rabtid kilogram aan badannahay marka waxaad leedahay adiga at least 70. marka calculate haddaad taabatid wuxuu kuu soo saarayaa calorieska maalintii aad u baahan tahay si aad ugu noolaatid. marka sidaas ayaa loo fiirin karaa. markaad u aragto miisaan dhimista wax si dhow lagu gaaro waxaa fududaanayso asbuuc kadib inaad joojiso. xasuusnow sababtaad u bilowday siina joogtay.